waxaan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno xiisadda dalka Liibiya wadahadaladii siyaasadeed oo maalintii afraad dhinacyada Liibiya uga socda dalka Morocco beesha caalamka iyo ururada heer gobol iyo heer caalami oo cabiray aragtiyahooda wadahadaladaasi Mareykanka, Midowga Yurub, Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo ururo kale oo ka hadlay wadahadalada nabadeed ee Liibiya waase maxay qodobada ilaa haatan la isku afkartay iyo kuwa khilaafku ka taagan yahay barnaamijkeena waxaa kaloo qayb ka noqon doona isbaahaysiga cusub ee ay samaysanayaan dawladaha Turkiga iyo Iiraan iyo madaxweynayaasha labada wadan oo kulankoodii salaasadii kaga wada hadlay arrintaasi macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka maalintii saddexaad ayay dhinacyadii xabad joojinta iskala gaaray dalka Liibiya ay wada hadallo uga socdaan magaalada Bouziqa ee dalka Morocco iyadoo ay labada wafdi kala hogaaminayaan gudoomiyaha golaha sare ee Liibiya Khalid al-Mishri iyo gudoomiyaha baarlamaanka Aqila Saalax waxaana wada hadaladan oo tan iyo axadiis soo socday lagaga wada hadlay heshiiska Sakhiraad ee sanadkii 2015 lagu soo dhisay hay'adaha dawladeed ee Liibiya heshiiska oo ay Morocco ku dadaalayso inay badbaadiso oo dib u soo cusboonaysiiso una noqdo dariiqa loo marayo soo afjaridda kala qaybsanaanta siyaasadeed ee wadankaasi iyo sidii khayraadka dalka si isku mid ah loogu qaybsan lahaa oo ay ku xigto isbedel siyaasadeed oo dalkaasi ka qabsooma sida doorashooyin iyo dhismaha dawlad shacabka matasha ururka Jaamacadda Carabta oo haatan ah urur magac ahaan uun dhisan laakiin aan wax manfaca u lahayn wadamada ku midaysan ayaa waxa uu soo dhaweeyay dhexdhexaadinta ay wado dawladda Morocco waxaana Jaamacadda Carabta ugu baaqday dhammaan dhinacyada Liibiya inay la yimaadaan niyad wanaag si xal wadan oo dhameystiran loogu helo mushkiladaasi ururka Jaamacadda Carabta waxa uu taageeray in la sii wado dhamaystirka marxaladaha ku meelgaarka ee dalkaasi ku jiro si muddada looga shaqeeyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka oo natiijadooduna ay noqoto mid ay ku qancaan dhammaan dadweynaha Liibiya iyo dhinacyada siyaasadeed waana xilli ay dawladda Spain oo dhanka waqooyi kala jaaraha Morocco ay bilowday dhaqaaq diblomaasiyadeed oo arrimaha Liibiya iyadoo gabadha wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ay socdaal isugu martay bariga iyo galbeedka Liibiya oo ay kulamo la yeelatay madaxweynaha xukuumadda dib u heshiisiinta qaran Faiz Sarraj gudoomiyaha golaha sare ee dawladda Khalid al-Mishri iyo gudoomiyaha baarlamaanka Aqila Saalax iyadoo dhammaan dhinacyada kala hadashay si adkeynta xabad joojinta jirta xilligan iyo sidii fursad loo siin lahaa wada hadallada siyaasadeed looguna abuuri lahaa jawi sabab u noqon kara inay wada hadalladaasi guuleystaan martigelinta Morocco ee wada hadallada nabadeed ee Liibiya waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo isla dalka Morocco ka socdo kulan madaxeedka dalalka saaxilka iyo saxaraha Afrika kuwaas oo laftoodu soo dhaweeyay wada hadallada Liibiya ee haatan ka socda dalka Morocco waxaana ay ka dalbadeen ka qaybgalayaashu inay tanaasul isu sameeyaan inkastoo haddaba qodobada laga wada hadlayo qaarkood uu khilaaf ka taagan yahay haddana ma xuma ayaa la leeyahay rajada ay Morocco ka qabto inay mar labaad ku guulaysato wada hadallada Liibiya gaar ahaan xilligan oo ay ka qaybgalayaashu isla qaateen qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin soo gabagabaynta kala qaybsanaanta hay'adaha dawladda ee bariga iyo galbeedka ku kala shaqaynayay iyo sidii xad loogu yeeli lahaa lunsashada hantida caamka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu taageerayo dhammaan qorshayaasha gacan ka geysanaya dadaalada nabadeed ee dib loogu dhisayo dawladnimadii wadankaasi xilli ay safaaradda Mareykanka ee gudaha Liibiya cadaysay inay la wadaagayso qaramada midoobay kalsoonida ay ka qabto in wada hadallada Liibiya ee Morocco ka socda ay yeelan doonaan natiijo wanaagsan dhanka Midowga Yurub ayaa sarkaalka u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda Joseph Borrell waxa uu soo dhaweeyay martigelinta Morocco ee wada hadallada siyaasadeed ee dhinacyada Liibiya isagoo ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo taageero u ah dadaalada qaramada midoobay ay xalka ugu raadinayso dhibaatada Liibiya ururka Midowga Afrika ayaa isna gudoomiyahooda Muuse Faqi Maxamed waxa uu soo dhaweeyay bilowga wada hadallada siyaasadeed ee Liibiya ee ka furmay boqortooyada Morocco madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Rouhani ayaa salaasadii shalay ee 8 bisha Sebtembar waxa uu sheegay in dalkiisa iyo wadanka Turkiga ay yihiin laba quwadood oo ku yaala gobolka bariga dhexe oo ah mandaqad amni ahaan xasaasiya labadoodabana lagu hayo xiqdi iyo cadaawado
sidoo kalena aanay waddo kale u furnayn labadooda inay sii ballaariyaan xidhiidhkooda iskaashi mooyaane si ay u jebiyaan buu yidhi cadowga ah una fashiliyaan mu'aamaradaha la soo baleegeeyo madaxweynaha iiraan ayaa hadalkan ka jeediyey kulanka qaabka video conferenska ku qabsoomay ee wareegii toddobaad ee golaha sare ee wadajirka ah ee iskaashiga istaraatiijiga ah ee labada waddan turkiga iyo iiraan kulanka oo uu ka qaybgalayay madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo mas'uuliyiin sare oo labada dhinaca madaxweyne ruuxaani si toosa carabka uguma dhufan dhinacyada labada dawladood cadaawada ku haya laakiin waxaa loo filayaa inuu u jeedo isbaahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay weheliyaan Israel, Faransiiska, Greega iyo Qobrus isagoo xidhiidhka ay la leeyihiin Turkiga ku sifeeyay mid ku dhisan is-ixtiraam, diris wanaag iyo dhaqan wadaag uu soo raaco inay maslaxado waaweyn ka dhaxeeyaan amniga gobolka iyo xasiloonidiisana ay ka wada shaqeeyaan madaxweynaha Turkiga ayaa isla kulanka waxa uu ka sheegay in iskaashiga Ankara iyo Tehran uu gobolka ahmiyad weyn u leeyahay kulankoodii salaasadana ay ka soo baxeen go'aamo ahmiyad leh oo lagu sii ballaariyay iskaashigii jiray warbixin ay goor dambe kulanka ka soo saartay madaxtooyada Iiraan waxa lagu sheegay in kulankii golaha sare ee iskaashiga istaraatiijiga ee labada dawladood laga soo saaray go'aamo aad u muhiim ah oo lagu sii ballaariyay xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo laga bixiyay go'aamada la sheegay in kulankaas salaasadii lagu qaatay isagoo kulankooda ku soo beegmay xilli ay xiisadu guud ahaan ka kacsan tahay bariga dhexe oo ay Iiraan khatar amnigeeda ka dhana ku tilmaantay soo degitaanka Israa'iil ee dhulka Imaaraadka Turkiguna iska horimaadyo kala kulmaya wadamo reer Yurub oo ay ugu horeeyaan Greega, Qobrus iyo Faransiiska kuwaas oo ka soo horjeeda barnaamijka sahaminta shidaalka ee Turkigu ka wadaan xeebaha ka mid ah bariga Mediterranean-ka ee ay Greega, Qobrus iyo Turkigu mulkigooda sheegtaan waxaa si suuragal ah in kelmadda isbaahaysi yeelashada madaxweynaha Iiraan isticmaalay inay ka turjumayso heshiisyo si qarsoodiya loo dhameeyay gaar ahaan in laga shaqeeyay sidii dhabaha loogu xaadhi lahaa faragelin military oo Turkigu ku sameeyo dalka Yemen dalka oo ay Iiraan ku leedahay kooxda Xuutiyiinta oo ka taliya caasimadda dalka ee Sanca iyo dhul badan oo kale oo dalka ka mid ah iyagoo isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ee taageeraya xukuumadda sharciga ah ee Yemen ay ku kala qaybsameen gudaha Yemen oo ay Imaaraadku samaysteen ururo kale oo hubaysan oo gacanta ku haya caasimadda labaad ee dalka ee Cadan iyo meelo kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay jasiiradda Suqadara halka ay xukuumaddii dalkuna dibad wareeg tahay oo ay caasimadda Sacuudiga ku shaqayso jamhuuriyadda Iiraan iyo Turkiguna waa laba quwadood oo masaafadooda dhuleedna ay aad u ballaaran tahay inkastoo ay military ahaan iskaga soo horjeedaan Suuriyana oo xukuumadda iyo mucaaradka kala taageerayeen haddana waxa ay dhanka kale ka wada shaqeeyeen heshiisyadii Astana ee Ruushku ku saddexda ahaa ee xalka nabadeed loogu raadinayo waddankaasi Suuriya halka sidoo kalena ay istaraatiijiyad ahaan labada waddan hortaagnaayeen muddo dheer dawlad Kurdiyiintu yeeshaan oo gobolka ka jaanqaada xuduudooda dhanka berrigana waxa ay ka leeyihiin isdhaafsi baayac mushtar iyadoo kala bar tirada dadweynaha reer Iiraanna ay asal ahaan ka soo jeedaan qowmiyadda Turkiga kadib go'doomintii ay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn saareen dawladda Qatar sanadkii 2017 Turkiga iyo Iiraanba waxay taageero la dhinac istaageen dawladda Qatar iyadoo isbaahaysi kasta oo labada dawladood dhex maraana oo dhabaha u xaarayo inay wadamo kale ku soo biiraan allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow ciirdaroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risac cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow